xaasidnimada wax laga faa'iido ilaa hadda aniga waan fahmi waayay aniga maanta miyihii qof lixadkiisa qabo miyihii maanta qof ordi karo miyihii maanta qof shaqaysan karo oo dush wax saaran karo manihii qof wax soo bartay nolosha kaliya waxaan ku maarayaa waxay tahay inaan youtube-kaas wax soo geliyo ama tiktok live aan soo galo maanta si daacadnimo idin la hadlaa ilaa iyo haddana waxaan fahmi waayey waxa noloshayda dadka ay ku rabaan inay u burburiyaan war haddii aniga aan dhinto oo adiga ay wax kaa soo galayaan waa gooni waa ii sheegi kartaa haddaad aniga ii xaasidayso oo adiga aad wax ka faa'iidayso waa gooni iidana walow qofkan waxbaan ku sameeyey waxna waan ka faa'iiday haa wax la garta waaye qodobka saddexaad wuxuu yahay aniga markaan inta imaaday oo aan rabay barnaamij UN inaan galo xogteeda oo dhan waa igaga soo horeysaybo ilaa hadda aniga waa fahmi waaye dad aqoon leh oo barnaamijkaas galo oo hebel la dhihi karo ayaa waxyaabahaasoo kala samaynayo meel kastoo codsi aan u dirsaday iyo meel kastoo fariinteeda aan gaarsiiyey waxay leeyihiin wax walbo aad tahay way kaa soo horeeyeen weligay allah intay ku aragteen xaasinimo intaas la eg maanta waxaa la xaasinimeynayaa waxay tahay qof naafa ah oo lixadkiisa aanan dhammaystirnayn aabbo u soo baxay 5 caruur iyo hooyadooda in noloshooda uu wax ka bedelo ayaa xaasinimo lagu sameynayaa waxaa xaasidnimo lagu sameynayaa gabar masaakiin ah qof ay jeceshahay oo nolosheeda rabo in uu wax ka bedelo waxaa la xaasimeynayaa ilma sida bahaahinka oo kale ah aanan hadli karin haddii maanta gacanteeda inta loo jarjaro dabka loo saaro loo kariyo afka loo geliyo cunaayo aabbo inta keenta aan ku dhehaynin ayaa la xaasimeynayaa wallaahi shalay markii aan tagay aniga waa yaabay waxaan dhahay intaanu xaasidnimo ah intaanu cadowtinimo ah intaanoo dhibaato ah sababta lagugu geysana adiga maxay tahay yaa dulmi ka gashay yaa qalad ka gashay aniga maanta ma jirtaa qof aan gurigiista ugu imaaday aan dhibaateeyey ma jiraa maanta qof social media inta usoo fadhiista aan aflagaadeeyo caayay ma jiraa qofay gacanteeda gaartay ma jiraa qof aniga aan wax ka haysto oo isdhahay bal waxaasaa baabajey kaa haystaa oo aad ku tuhmaysaa haddii aad oo ku siiyo waa kala ammaan gelinaysa haddii uu jiro xataa la ii sheego anaa diyaar u ah inaan idin siiyo anaa diyaar u ah inaan idinka jaahil bixiyo anaa diyaar u ah inaan idin raali geliyo bal adiga ii sheeg maanta waxaad aniga igu haysatid oo aad igu aflagaadeynaysid oo aad igu dhibaataynaysid oo igu cunuqabateynaysid